warbixin uu qoray wargeyska The New York Times ayaa sheegaysa in xubno badan oo ka tirsan qoyska boqortooyada Sacuudiga oo haleelay fayraska corona waxaana la sheegayaa in dadka xanuunku haleelay ee qoyska boqortooyada ka tirsan ay gaarayaan ilaa 150 qof. Amir Faisal bin Bandar bin Abdulaziz barasaabka caasimadda Riyadh oo 70 jir ah ayaa la dhigay qaybta gargaarka degdega ah ee cisbitaalka sida uu sheegay wargeyska The New York Times oo warbixinta ka soo xigtay xiriidho uu la sameeyay cisbitaalka iyo xubno ka tirsan qoyska boqortooyada. Boqor Salmaan iyo wiilka dhaxalka boqortooyada leh ee Mohammed bin Salmaan ayaa iyagana la karantiilay sida warbixintu sheegayso. dhakhaatiirta cisbitaalka Elite ee loogu shaqeynayo qoyska boqortooyada ayaa sheegaya in ay diyaariyeen 500 oo sariirood oo dheeraad ah kuwaas oo lagu talagalay in loogu shaqeeyo ama loogu adeego xubnaha qoyska boqortooyada ee xanuunka soo rito. Saameynta ballaaran ee xanuunku ku yeelanayo xubnaha qoyska boqortooyada ayaa lagu tilmaamay socdaalka faraha badan iyo kulamada ay la yeelanayaan dadka kale xubnahani. Dalka Saudi Arabia oo ay ku dhaqan yihiin dad gaaraya 330 milyan oo qof ayaa lagu soo waramayaa in ay xanuunka coronavirus qaadeen saacadahan aynu ku jirno ee maanta Jimcaha dad gaaraya 3287 tirada kiisaska dhimashaduna ay gaarayso 44 qof. Sacuudiga oo ay ku yaalaan goobaha barakeysan ee ugu waaweyn dunida ee islaamku u cibaado tago ayaa sanadkan la xidhay oo aan la ogolayn xanuunkan dartii wax cimro ah in loo tago. sidoo kale weli go'aan rasmi ah kama ay gaadhin dawladdu xajka sanadkan oo ku aadan dhamaadka bisha July. isu socodka dibad iyo gudaba iyo xitaa gobolada Sacuudiga dhexdoodana waa la hakiyay.